malaa dadku tusaalahay aad wax ugu fahmi ogyihiin aan laba midho tusaale ama saddex tusaalaha tilmaamo nusuusta badanba ka tago nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh sulxu xudaybiya heshiis bay wada galeen heshiiskii oo la wado waan wali la qorin ayaa waxayse soo taageen nin muslima abu jandal nin muslima uu dhalay odayga nebiga heshiiska la gelaya calayhi salaatu wasalaam oo maka lagu toorjargareeyey oo soo baxsadoo silsiladihii ku xidhan yihin qiyaasada nin muslima oo gaal ka soo cararay oo silsiladaysan oo silsiladihii wata oo toorjarkii ka muuqdo ayaa isa soo taagay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi waxaan heshiiska ugula galo kambaa ugu horreeya heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobadiisa wixii muslime soo baxsada ee quraysh ka tagay muslimiinta u tagaa in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xagga usoo cararana inaan la soo celin wuxuu yidhi heshiiska ah wixii ugu horreeyaan kugula galaa waa kan waar wali lama qorin may heshiisba geli maayo haddaan kaa la celinin waa inankiisii karina nebigu ilaa xad u gaadhsiiyey kan iga qalleeh ii dhaaf waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ku yidhi isbir waxtasib raac hadda waa nin muslimo waayo waxaa la ilaalinaya cahdiga muslimiintu galeen isbir waxtasib baa la yidhi sabiroo iska tag waa masalada axaadiidka dheer uu ku soo arooray bukhaari ku yaala cumar iyo abubakar iyo hadalladii saxaabada ka soo baxsaday isla qisadan wax ku saabsan oo labaad aan tilmaamo wakhtigaa koobane abu jandal saxaabigii la odhan jiray haddaynu sheegnay saxaabi kala soo baxsaday oo abubasiir la yidhaahdo wuxuu ka yimi gaaladii dabeetana madiinuu yimi madiina isagoo iska fadhiyo jooga ayay gaaladii laba nin ka soo daba direen waxay dhahaan ninkaasaa soo baxsaday waa in la soo celiyaa ballankeenuna wuxuu ahaa maxay inaad celiso wixii xaggayaga ka yimaado abubasiiroo jooga buu nebigu yeedho wuxuu yidhi kaale raac nimanka nebi maxamed ma diidi karo calayhi salaatu wasalaam labadii ninba soo raaca gaaladii baa lagu celinaya waayo heshiiskaasaa dhigayay wuu yimi dhexda markuu marayo isaga nebiga ka yimi calayhi salaatu wasalaam nimankiina u dhiib dhexda markuu marayaa nimankii la iska sheekaystay oo dabeetana seeftaadu qurux badanayo waxbuu yidho bal itus oo mid buu seefti ka qaado mid buu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay isagoo kii kale eriyayo haddana madiina kusoo noqdo waxaa la yidhi abubuseer soo gala haddana oo labadii nin aad ku dartay midna dhimay midna wuu eriyayaayo waa kan wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu ballankii fulisay ilaadu caadigaagu waxaa inaad celiso oo i celisay nimankan dee anaa iska soo farsameeyo ka yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kani waa dagaalo ooge alla yaa wax u gargaara siiyey yani weedh eeg mascaru xarb waa dagaalo ooga buu nebigu yidhi wuxuu gartay haddii haddana lasoo noqdo inuu nebigu celin doono markaasuu iska baxa meelaan dowladda islaamku gaadhin oo xeeba buu iska degay aan nebi maxamed xukumin markaa dee gaaladu odhan mayso soo celiyo markaa wuu iskaga tegey meel kaluu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isagu keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiine ma yimaadaane halkaasay tagaan dhowr boqol oo nin oo abujandalkii ka mid yahay baa ugu tegey akhiiran gaaladaa time waxay idhaahdeen bandigaa waanu ogollay in laga masaxaa heshiiskii nimankan u naga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabaddaa waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasuu aqbali waa maslaxad iyo waa kan iyo waxaas meesha kama socdaan heshiiskaad gasho waad gasha qiso saddexaad aan idin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay
nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen laakiin safarkiina waa baxsaday qurayshoo 1,000 nin oo fardahoodii iyo awrtoodaba wadataana dagaalkii bay yimaadeen waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badnaa rag inuu helo waa kii ilaahay baryayay lahaa ilaahayow intan haddii la halaago maanta dunida dib lagugu caabudi maayo weedhihii nebi maxamed lahaa bay ka mid yani waa meel uu 300 oo nin iyo kusuur wato qolada kalena 1,000 ayiin ku 3 laabmaan waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaa ee lagu dagaalgelayay aanay wadanin nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodii bay wataan idan waa mowqif xarij ah mowqif aad u adag laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka warhaynin ayaa meeshii ku soo beegmay waa xudayfa ibn al-yamaan iyo abihi xudayfa iyo abihi bedar kamay qayb gelin sababtay uga qayb gali waayeenna waa tan iyagoo soo safray bay yimaadeen gaaladaa qabatay waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay dhaheen madiina aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maya maxamed baa ku socotaan ciidanka halkan jooga war ciidan kuma soconna anagu madiinaan ku soconnaa waxay dhaheen ballan noo qaada haddaanu idin sii daynay inaydan ciidanka ku biiraynin heshiiskaana la gala heshiiskii bay galeen ciidankaa ku biiri mayna anagu madiina ayaanu qabanaynaa heshiiskaasaa lagu soo daayey dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan waa muslimiin gaala la ishayaa waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo dee nimankii waana qabteen heshiis baanaanu la gallay heshiiskiina saasuu sheegayaa maxaanu samaynaa wuxuu nebigu ku yidhi xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay nafii lahum cahdahum ballankoodaan u oofinayaa ilaahayna waa u tala saaranayaa iska taga buu yidhi labadii saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodaan ugu fulinayaa buu yidhi nebi maxamed baa ballanka buriya layga maqli maaye madiinadiina iska qabta baa la yidhi ilaahayna waa u tala saaranaya haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi maxamed ilaaliya calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaa halista ah heshiisuu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba miduu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mawaaqif dagaal oo adag oo uu rag u baahan yahay haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa kontraag baa mushtare iyo haweeney la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay laa diina lah diintu waa dhaqan iyo akhlaaq dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi liman laa cahda lahu inuu nebi maxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn qofka aan heshiis fulin qofka muslimkii markaa ama mid wacdiya ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan ama mid uu saxeexay ha noqdo ama mid uu afka ka galay ha noqdo war heshiis ballan haddaad gasho oofi ballanka oofintiisu bay culammadu yidhaahdaan qadaaya alkhaleynta ugu badan leh waa iskaga mid inaad gaal la gashay iyo inaad muslim la gashay iyo inaad munaafiq la gashay waa iskaga mid waa gaalo oo waynu iska khiyaamaynaynaa war muslimku wax ma khiyaameeyo qadrigana kuma dhaco qadrigu waa ballan furow intaad dadka wax la gashay inaad xagga kale ka weydaanato bale axaadiistu waa kuwa tilmaamaya aakhiro kaasi isagoo liwaasita culammadu waxay dhahaa dabadaa loo suraa liwaagu dee waa calaamad bandiirad isagoo dabada ku sitoo imanaya ay ugu qoran tahay liwaaulqadr waa kii ballan furowga lahaa kii dadka khiyaameeyey aakhiro oo khalqigii ilaah oo dhami taagan yihiin baad imanaysa adigoo xagga dambe ku wata calaamad bandiiradi kaa taagan tahay sheegaysa inaad tahay qofkii ballanka buriyey haddaba qur-aanka in badan baa ku aragteen aladiina yanquduuna cahd allah awfuu bicahdi illaah in badan baa ku aragtay aladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal in badan baa ku aragteen iyadoo ilaahay tilmaamayo waid akhadnaa miihaaqakum aw miihaaqahum
in badan baa waxaasoo dhami waa ballamo ilaahay ballankaad la gashay fuli kow waxaad rabbi ballan la gashay kad laa ilaaha ila allah tidhi waxa weeyaan ilaahu keligaa baan ku caabudaya ballankaasaan galay محمد رسول الله مركز تري وحويا طريقي النبي محمد بن كوكو عابدية جيت كلا شيء حن ما يفولي بلنكا وحاد بلن مسلم كان لقى شيء فولي مد جور هالنقض مد باع مشتر هالنقض مد مدح نما هالنقض مد كدوني هالنقض وحاد بلنكا شو فولي وانا الدين ما دام وقته كوبن يهي حنبر ربون إن لفهم موضوع أبلنكو إن أنا قال يا مسلم قال الله هنا هداد بلنك شيء نتفلسه يا إنه الدين تكمل يهي يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا وينيي إنه خطبتك استوى آخرين يا أنت بدن وآخري يشتري حديث كست الماما يو قرآن كان آيات كهدن سنانا أوروريا وبالمئة وكبدني الميثاق والعهد والوعد هو العقد وهي كصابسا القرآن كصا أروريق وآيات وترى بدن له وحالو كلا سوعيه قال يا مسلم يا منافق حديث الشيخ وآخرين ومغليسين صدح قفكي لقاها لأنه منافق يهي علامات المنافقين نيتي أما أفر قفكي لقاها لأنه يهي منافق خالصة وحكم دها أهديين لفوليو دو قفكو بلنك يا عهدي بريو إن أنا أهين إسلام نمدي صحة هاي حق النفاق عملية إنه سي صعوده إذن نفي الإيمان ماشي يا الله علماء وحيد هذا ما نفي الدين كني ونفي الكمال بي علماء بدنيين أما يكون المامان لكن ده هدو نقضاء إن لا إله إلا الله برسوح نقضنا يا نفي الإيمان كي رسمي قاها دون وضع عهد قاد إله إلا الله هيدين أدبرسه أما النبي محمد الله هيتسنى بين أدو برسه ما الخطر وقارية إذن عهود ميل سرو نفي الإيمان قاري كرتنا ويالا كرتا الدين بين لقاء فيه مالك هو سينا ويلادي لكن نقضيه مرنا بإسلام نمكم أقومانا عنكو سوكوبي يا مركا إلهي انت تكعب سطو اسكهو بوحد قليسو وحيات بلن قليسو أما عهد قليسو مد شقها هذا مد جورها هذا مد دولة نماها هذا مد مدحد لقى ليس هذا مد أتقال لقى ليس هذا وحد دونا بها النقطة اسكهوبي هدات سقى شو الصحيح ذو هبورين أهدي هبورين هدات إقالة طلبتو يسقوا وكا قليه وامل هديك كلام ملزمات كنت بيعي محلة المامية وحل أمانة يقفك مسلم كيدتك كقلية لكن هذا كونتراك ودعوات كشرته سينا مو بروك هرتيت مركا إلهي أن كعب سنو الدين تينا إلى شنو صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.